marka hore waxaan salaamayaa marwada qaranka Aamina Waris waxaan salaamayaa guddida ama wasiirada ama mas'uuliyiinta qaranka ee halka jooga ee muddada sanadka ku dhow arrintan digida uu noqonayay ee u dhawaanayay ee isagoo Ilaahay la qabtay ku guuleystay Ilaahay ku guuleeyay waxaan mahadnaqayaa runtii oo caawa hadalkeedu aniga gooniga taabtay marwaadna oo si gaar hadalkeedu ii taabtay waana qof mas'uula waxyaalaha aynu Soomaalida dheernahay ashkaasta aynu dheernahay ka mid tahay inta dabadeed waxaan filayaa caawa waxa maayarka caasimadu ama duqa magaaladu xafladan u qabtay waa soo dhaweyn iyo mahadnaq iyo taageero iyo hambalyo xubnaha dhabarkayga fadhiya ee muddada wiig iyo siyaadada hawsha ku maqnaa xisbiga kulmiye waxaan filayaa isaga inaan caawa laga filay taageero waaba cidii hawsha waday xukuumaddu xisbiga kulmiye ayay ka dhisan tahay madaxweynuhuna waa aasaasihii iyo hogaamiyihii ruuxiga ahaa ilaa iminka ee xisbiga kulmiye waxaan filayaa dekedan iyo wadooyinkan iyo dirajooyinkan iyo waxyaalahan inoo muuqdaa waa waxyaalaha ugu yar ee intuu noolaa Axmed Siilaayo qarankan u qabtay ay ka mid yihiin waxyaalo ka waaweyn oo ka fara badan oo ilaa nafruud leh ayuu dee qaranka u qabtay anigu waxaan ka maqlay wadada Ceerigaabo in badan isagoo ku taamaya oo aan madaxweyne ahayn oo xataa xisbi lahayn isagoo in badan ku taamaya waxaa daladiisii ka mid ahaa ilaahu waxaad igu ogaataa hadday u kalifiso shiire inaan u baryo tago intaan noolahay waddada inaan wax ka qabto waa ilaahay mahadii maanta isagoo nool in waddadii ay gebagebo ku dhowdahay ilaahayna cimriga ha u raajiyo camalkana ha u wanaajiyo waxaan kaloo soo taagnaa dekedaa berbera maalin maalmaha ka mid oo qayb ka mida la furayay ayuu nin injineer ah wuxuu ka sheekeeyey siyaar barre iyo siiraayo dekedaa isku laayay mabay ahayn dhowr iyo sagaashanadii xisbiga kulmiye halkaa madaxweynahaasi maanta uu waqtigu kaga dhammaado ayuu ka sii qaadi doonaa waxa la leeyahay wixii horumarina ee qabyooba wixii kalena uu ku dari doonaa barnaamijkiisana dhowaan wuu soo bandhigi doonaa haddii ilaahay ka dhigo ummaddana waxaanu ka codsanaynaa dee inay kaana u qiimeeyaan maanta wixii dambe annagu ku faani mayno waxaasaanu qabanaynay waxaasaanu soo qabannay ayaa nooga miisaan weyn oo markhaatiya wixii kalena waa ku dari doonaa waxaan kaga baxayaa waa guul qarankan usoo hoyatay waa guul dalkan horumar u ah inaan halkaasoo adinatii hooyaan u ahay cagnayaal baan u ahay anugu abtibaan u ah oo muran la-aana oo aan aniga cidina igu haysan ilaahay idinkana xilkana haydinku asturo